Faadumo Ibraahim Gurey waa hooyo ku xanuunsan xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Hooyadan oo xanuunsaneyd muddo 8 sannadood ayaa la keenay xeryaha Dadaab 3 sano ka hor si loola tacaalo xaaladdeeda caafimaad. Laakiin xanuunkeeda waxba waa looga qaban waayay xarumaha caafimaadka ee xeryaha Dadaab iyo gudaha dalkan Kenya. Xanuunkeedu wuxuu ahaa nabar weyn oo ka soo baxay sinta markii dambena isku fidiyay ilaa bowdada lugta. nabarka oo dilaacay 2 maalmood ka hor ayaa sameeyay dhaawac weyn oo jiif iyo joogba u diiday hooyadan xanuunsan. Mukhtaar Suubaan Dhaqane oo ka mid ah culimada xerada ayaa si dareen leh uga hadlay xaaladda ay ku sugan tahay hooyadani. waa maamo xanuunsan oo aan soo booqannay oo ku nool xerooyinka qaxootiga Dadaab Kenya kaamka Xagardheer. maamadan ikhwaani runtii markaad muuqaalkeeda ama xanuunkeeda aragtaan qof kasta oo qalbi leh, qof kasta oo naxariis leh, qof kasta oo damqasho leh, qof kasta oo qalbigiisa ay ku jirto wax yar oo naxariis ah waa qof uu ka naxayo. maamadan xanuunsan ayaan maanta soo booqannay. waxaan doonaynaa inaan xanuunkeeda iyo dhibaatadeeda dadka muxsiniinta ah, ahlu khayrka ah, ahlu iimaanka ah aynu la wadaagno xanuunkeeda aynu tusno. maamadan xanuunsan waxa laga keenay Soomaaliya. xanuunkana maamada wuxuu ku dhacay muddo hadda laga joogo 8 sano. marka Soomaaliya laga keenay xerooyinka qaxootiga la keenay si hay'adahan caafimaad iyo daawo wax looga raadiyo. sida ay noo sheegeen dadkeeda iyo ehelkeeda dabcan waxa la mariyay xarumaha caafimaadka oo la soo mariyay waxba laga qaban waayo, waxba loo tarwaayay. xanuunka halkan bay la jiiftay. midda kale haddii xitaa wax loo qaban lahaa hay'adaha wuxuu qaban lahayn kaar qaxooti ma ay laha. qofka hadduusan kaar lahayn waxba looma qabto. Soomaaliya waa la keenay xanuun baa loo keenay. ehel ma lahan, tol ma lahan. waxay ku dulnooshahay oo gacanta ku haysaa gabadha aan halkan fadhido ee idiin muuqateed arkaysaan oo gabar iyada dhashay. gabadha ay dhashayna agoon, ilmaheedu waa ilmo agoon. iyadaa u baahan in la saacideeyo oo la garab qabto. xaaladeedu sidaa u ahayd, xanuunkiina u sii korayay una sii weynaanayay. hadda saad arkaysaan buu marayaa inuu xanuunkii dilaacay oo aan la fiirin karin oo aan la daawan karin sida idiin muuqato. marka insha Allah ta'ala cid aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dadkiina walaalaha muslimiinta aan ahayn u maqan ma jiraan. Mukhtaar ayaa ka sokow laxawga iyo xanuunka uu nabarkan ku hayo hooyadan waxa uu ka hadlay xaaladaha nololeed ee ku haysta xeryaha qaxootiga. marka koobaad horta guri iyada ay leedahay ma degano. reer iyada ay leedahay ma guri ay leedahay ma degano. waxay korsaar ku tahay gabadheeda. waxay seexataa gurigan hadda aan ku jirno oo kaleeto muuqaalkiisa aad arki doontaan wareha intuu sidano ay ku nooshahay. waxba waa wax in la daaweeyo oo ay daawo qaadato waxa kaga sii horeeya oo awalada horta bal meel ay seexato waad arkaysaan had meesha ay jiiftaan sida u eg tahay meeshan ay jiiftaa. mid kale waxay u baahan tahay xitaa waxa qofku markuu sidan u xanuunsan yahay cuntooyinka caadiga galeyda iyo waxa iyo raashinka iyo ma cuni karo. wuxuu u baahan yahay cuntooyin sida caano iyo wax in la siiyo. wixii loogu soo gadi lahaa ama afka loogu saar lahaana ma haysato. waa maamo ma taqaan halka ay jiifto. waxa ka daran daawada xanuun baabi'aha ee nabarkan xanuunaya waxba cunaya, waxba xanuunka gudaheeda waxba cunaya ma haysato. gabadheeda Caasho Ibraahim Aadan oo ah hooyo haysata 7 carruur oo agoona ayaa ka hadashay xaaladda hooyadeed, waxaana ay dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed ka codsatay in la caawiyo. waa muddo 3 sano aan la tacaalay meeshaan meel kasta la aaday. bis waxa oo istaaladii NRC waxba ay qaban waayeen. nabarkan weyn badan ku yeelay aduu iska qarxay saanay ay tahay. muslimiintu waxaan ka codsanaynaa diigargaartiin wax ay qabatiin idinkan Ilaahayna way jarsanad idinka siiyo. Ilaahayna oo jannad firdawsi idinka waraabiyo. waxa oo ana waxa uu awoodo male carruur oo ma 8 carruur oo ma haysta aboo Soomaaliya ka soo dhintay. waxaan u awooday waxaan heli karaa ma jirta. Mukhtaar Suubaan ayaa dhankiisa guud ahaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in gargaar degdeg ah lala soo gaadho hooyadan xanuunsan. anagoo og adduunka in xanuunna ka jiraan. adduunka dhan viruska xanuunkan corona uu haleelay oo dadka dhan guryaha joogaan in badan oo kamid u dhamaanayaan, in badan oo kamid la xanuunsan yihiin. Ilaahay ba idin kugu dhaarshay billaahi calaykum maamadan miskiinta ah xanuunsan. isku day inaad Ilaahay ugu dhawaataan. isku day inaad qalbigeeda farxad gelisid si Ilaahay adigana kaaga farxiyo. isku day inaad xanuunkan
inta aad kari kartid qalbigeeda daawaysid waxaad ku bixin kartid ku bixisid si adigana Allah tabaaraka wa tacaala dhibaatada adduunyo iyo mid aakhiraba ilaahay kaaga feedo gabadhan cidna kaama xigto wallahi baanan garanayn ilaahay dartiisa u soo booqanay xanuunkeedan ka naxnay waan fiirin waynay xanuunka hay wallahi waa daaban waynay kulleed waxaan filayaa nin kasta oo qalbi lena inuusan fiirsan karin ikhwaani waxaad ogaataan waxa aad sadaqaysato cadaabta ayaad uga badbaadi carada ilaahay baad uga badbaadi hantidaada kugu barakoobi ilaahina subxaanahu wa tacaala kurba iyo dhibaato kaaga feedi qof kasta oo muslim ah kulleed ma daawan doontaan markaad aragtaan waan filayaa anu kulleed markaan arkay waan fiirin waaye yaa xanuunkan intan elamara Soomaaliya baa laga keenay maamadan Kenya la keenay waxba waa laga qaban waaye wayna go'day way isla dilaacday meeshii waad aragtay inay go'do isla dilaacday saasay noqotay waxaan idin dardaarmayaa insha Allah tacaala ilna xariis la inaad ku soo eegtaan sidaan si aan hayn uma seexan karto qaabkanaad arkaysaan ilaahay baa idin kugu dharshay qof bani aadan sidan ma jiifi karaa 24 saacadood oo la iska rogeyn oo la istaagayn oo la soconayn oo la gadoomaynin sida qof ma u jiifi karaa maamada xaalad adag bay runta ku jirtaa waana aragtaan xaalad ay ku jiifto gogol ma lahan hadda saana u jiiftaa sidaan ba ilaahay baa idin kugu dharshay ay ku jiiftaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo maamadan gacan gurmada u fidiya